kale u noqday saasuu ku dhimanaya markaasaa wuxuu gelayaa naarta saasuu rasuulku tilmaamay sallallahu calayhi wasallam. walaalayaalow aan aad iyo aad u dadaalno. daartaan aan joognaan ku sugannahay daar baa ka dambaysa. daarta ka dambaysa waa daartii qabriga. qabriga waxaa ka jira walaalayaal xayaato aanan anagu markaa aqoonin. xayaato lagu magacaabo xayaatadii barzaqa ayaa markaa jira. war barzaqa waa meel aad iyo aad u dhib badan. meeshaa qof allaala qofkoo annaga nagamida way sugaysaa, laakiin dadna waxay u noqon doontaa beeraha jannada ka mid ah, dadna waxay u noqon doontaa godgodadka jahannama ka mid ah, waciyaadu billaah. qof walbow ka dadaal sida aad u hagaagi lahayd ku dadaal. war qof walbow meeshaa sidii lagugu wanaajin lahaa. barsuqu waa guri cajiib badan, waa nolol aan annagu la socon oonan aqaanin. waa nolol qayb ahoo iimaankii ilaahay noo tilmaamay aan ku rumaynay iyo sida kitaabka loogu tilmaamay. rabbi asagoo tilmaamaya barsaqa iyo xayaatadeeda ayuu yidhi xataa idaa jaa'a axadahum lmowt ilaa midkood geeri u yimaado qaala rabbi irjicuun, gadaaliyo celiyuu leeyahay. war gadaaliyo celiya godkaan ha igelinina. barsiqii ayuu diidan yahay. sababtu mataqaanaa waa la tusiyey. markuu sakaraadka ahaa baa looga qaaday kashafka iyo wixii markaa ka saarnaa. fa kashafnaa canka khitaa'ak, daboolkaagii kaa qaadnay buu dha ilaah subxaana wa tacaala. iceliya, war meeshaan ha igelinina xataa idaa jaa'a axadahum lmowt qaala rabbi irjicuun, ilaahayaa idinku dhaariye gadaal iyo celiya. lacallii acmalu saalixan, meesha camal fiican in loo qabtay u baahan tahay. hadduu rabaa inta la soo celiyo camal saalixa qabto, rabbi caabudo, salaad dukado, diin barto, kadibna qabriga la geliyo. ee hadda ha igelinina, waayo saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu ciriirina. saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu guba. saa haddii lagu geliyo qabrigaa lagu ciqaabaya. rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt, waxaa loogu jawaabayaa kallaa, ma jirta arrinta. war qofku hadduu dhinto barsaqaa la geeya. qofku hadduu dhinto ciiddaa laga hoos mariya. qofku hadduu dhinto barkin looma qaado. qofku hadduu dhinto sariir looma geliyo. qofku hadduu dhinto nal looma geliyo. qofku hadduu dhinto meel cidlaa looga soo taga. camalka saalixaa shaqeeya. camalka saalixaa wehel noqda. camalka saalixaa iftiin noqda. camalka saalixaa qabriga waasiciya. camalka saalixaa qofka horumar iyo wanaag gaarsiiya. qabyaalad iyo xoolaanu orodna, waxaan qiimo lahayn baan maanta ku dadaalnaa. war wixii adduunka loogu talagelay in lagu joogo yaan maanta ugu talagalnaa aakhiro. saa yaa la yeelin. war qof walbo waxa aad haysato aakhira ku raadso. war qabrigaasaa dhib badan. war qabrigaasaa ciriiri badan. war qabrigaasaa imtixaan badan. qabrigaasaa mugdi badan. lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt kallaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa, waa hadal uu iska dhahay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. kasoo qaad maloo la tixgelin maayo. diinta alluu tixgelin waaye. aayaadka alluu dhaqangelin waaye. ilaahay kalaamkiisuu dhagaha u raaricin waaye. jirhkiisuu islaamka ku baabi'in waaye. intuu noolaa ayuu xayaatadiisii ka dhigay xayaato aan diinta islaamka lagu dhaqmin. saa darteed asagana loo tixgelin maayo. hadalkiisa la qiimayn maayo suu diinta u qiimayn waayey. hadalkiisa kor loo qaadi maayo suu diinta kor ugu qaadi waayey. barsaqu aad buu u dhib badan yahay.